Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal, kuna soo dhawaada Daily Podcast. Daily Podcast waxaan ku soo qaadanaa xalqadaha iyo mowduucyo runtii aad muhiim u ah isleenahay bulshadana wax badan ay ka bedelayaan. Xalqadana maanta waxaan ku qeexi doonaa aan ku soo qaadan doonaa xatooyada fakarka iyo afkaarta dadka ama waxa afka qala loo yaqaano intellectual theft oo ramase plagiarism. Plagiarism marka la qeexayo waxaa la yiraahdaa inta badan waa in aragti iyo fakar uu qof leeyahay inuu qof kale u sheegto lahaanshiyaheeda isagoo aan markaa sameeynin wax xigasha. Dunida maanta Afrika waxa aad ugu soo badanaya dadka hadaya fikradaha dadka kale iyagoo aan sameeynin wax tixgelin ama wax xigasha. Laakiin dunida horumaray way adag tahay maanta in qof uu fikrad uu leeyahay la xado kadibna qofkaasi wadanka uu ka shaqeysto. Sababtoo ah sharciyaad u adag baa jira oo qofka qabanaya sida sharciga loo yaqaan Copyright and Patents Act oo la sameeyay 1989 sidoo kale waxaa jira sharciga loo yaqaan Intellectual Property Rights sidoo kale waxaa jira sharciga saddexaad ee loo yaqaan Intellectual Property of Law. soo dhamaan sharciyadan aan sheegayo waxay inta badan tilmaamayaan xuquuqaadka maskaxda ama hantida maskaxda shakhsiga ee wadamada horumaray. qofkii ku xadgudba inta badan sharciyadan baa loo adeegsadaa. tusaale haddii aan soo qaadano 1980kii wixii ka dambeeyay waxaa jiray laba wiil oo dhalinyaro ah oo la kala oran jiray Cameroon iyo Winklevoss. labada inan saaxiibo bay ahaayeen waa mataano bay ahaayeen. waxay keeneen fakarka connect you oo ah in shabakada sida Facebook oo kale u shaqeysa inay sameeyaan. kadib waxay la wadaageen yar saaxiibkood ahaa oo markaa isku fasal ahaayeen oo loo yaqaanay Mark Zuckerberg. laakiin ugu dambeyntii waxaa dhacday in Zuckerberg uu xado labada wixii ka dambeeyayna markaa inuu sameysto shirkadda loo yaqaan Facebook. ugu dambeyn sharci bay la tirsadeen waa la dacweeyay ilaa ugu dambeyntii markaa lacag magdhow ah oo 60 milyan ka badan la siiyay. marka wadamada horumaray in qof uu fikrad u xado oo marka uu ku shaqeysto yani inta badan waa wax aad u adag laakiin Afrika aad ay ugu badan tahay. waxyaabaha inta badan la kala xado waxaa kamid ah ganacsiga fikradaha ganacsiga la xiriira ama copy la isku sameeyo ama in qof afkaar u lahaa si toos ah yani loo qaato. sidoo kale waxyaabaha la kala xado waxaa qayb ka ah aqoonta maadiga aad baa loo kala xadaa. 19 bishii April 2019 baa la sheegaa macallin wadankan South Africa Johannesburg University jaamacadda wax ka dhiga baa ardaygiisa cilmi baaris u sameeyay buu xaday kadibna wuu sheegtay. marka ugu dambeyn macallinkii baa la soo qabtay sidaaba marka maxkamadda loo geeyay. marka inta badan waxyaabaha marka la kala xado aqoonta maadiga qayb ka ah. waxyaabaha inta badan sidoo kale la kala xado waxa qayb ka suugaantu aad baa marka xiliyaan dambe aad loo kala hadaa in aan maanso ama suugaan uu qof leeyahay in qof kale marka uu sheegto. Soomaali dhexdeeda hadda waxaa jira waxyaabo inta badan la isku haysto laakiin ilaa hadda cid sida saxda ah yani u leh ilaa hadda lama hayo. tusaaladan soo qaadano gabaygan oranaya geeloba ugaasow markuu ayda meeranayo abeertiisa naaxdiyo hadduu aaranku iswaayo isaguba ma kala aamusee way su ololaaye ilmadiid miyaa tahay maxaad nagu imaan weysay. gabayga sida oranaya inta badan hadda waxaa loo nisbeeyaa raago ugaas warfaa. sidoo kale waxaa mararka qaar loo nisbeeyaa Xuseen Cadde gabayaa Xuseen Cadde sidoo kale loo nisbeeyaa. heesta calanka Soomaaliya oo hadda aad wada garanaysaan qolaba calankeedu waa cayno waxaa loo nisbeeyaa Cali Mire Cawaale. sidoo kale waxaa loo nisbeeyaa Qaasim Hilowle. sidoo kale waxaa loo nisbeeyaa Yuusuf Xaaji Aadan. suugaanta waxyaabaha inta badan aad hadda dhibaatooyinka marka uu taagan yahay ku jirtaa in la kala xado. waxyaabaha sidoo kale la kala xado internetka ayaa qayb ka ah afkaarta internetka la xidhiidha. waxyaabaha inta badan marka sababa in fikradaha la kala xado waxaa qayb ka ah jahliga aqoon darida qofka waxadaya oo yani aqoontiisa jahligu aad u yar tahay. sidoo kale dadka marka waan aqoonin xaquuq fakar wax la yiraahdo dadka waan aqoonin waxyaabaha sababa inta badan qayb ka tahay. sidoo kale waxyaabaha marka inta badan sababa in afkaarta la kala xado waxaa qayb ka ah ula kacaya bareer toos ah ayaa inta badan la sameeyaa. sidoo kale waxyaabaha sababa in dadku ay afkaartooda kala xadaan waxaa qayb ka ah qofka marka uu ku faanaya
qofka fikirka xadaya ama afkaarta sheeganaya inuu sumcad iyo magac yani ku raadsado oo ku faano waxyaabaha inta badan sababayaan sidoo kale waxyaabaha inta badan sababa in afkaar kala xado waxa qayb ka ah hilmaanshaha ama ilduufka wax loo yaqaano qof baa yani wax qoraya ama mawduuc buu diyaarinaya maybe waxa laga yaabaa in qofkaasi asagoo wixii og yani haddana inuu hilmaamo inuu qofkii uu xuso waxyaabaha inta badan sababay ku jirtaa sidoo kale waxyaabaha sabab waxa qayb ka ah dawladda marka aan sharci aan lahayn dawladda wax sharci aan soo saarin xaytaanka fikradaha marka leenahay inta badan laba loo kala qaybiyaa direct plagiarism iyo indirect loo yaqaana direct inta badan waxa sababa la yiraahdaa in qofku wax xadaya inuusan wixii uusan garanaynin ama aqoon badan uusan u lahayn laakiin directigu waa waxyaabaha inta ugu badan si kaas loo sameeyo qofka isagu og in afkaar la xado ay jirto ama in wixii uu markaa uu ku talaabsado taariikhda inta badan markii aad loo fiiriyo doodo fara badan baa ka taagan culumta qaar waliba ugu badnaada reer galbeedku fikradaha iyo cilmi culumta hadda ay sheegtaa inta badan waxaa la tilmaamaa marka inay soo xadeen gaar ahaan ay ka soo xadeen wadamadii markaa muslimiinta marka ay gumaysanayeen tusaale caalimkii weynaa ee muslimka ahaa ee loo yaqaan ibn khaldun wuxuu ku takhasusay culumta bulshada laakiin aabaha cilmiga bulshada waa la yiraahdaa hadda waxaa la siiyay Auguste Comte aqoonyahan Faransiis buu ahaa oo fikrado badan ku soo kordhiyay cilmiga bulshada ama socialka laakiin sidaas baa marka loogu nisbeeyay aabaha bulshada laakiin sida saxda ibn Khaldun ayaa marka xaquuq u lahaa Isaac Newton iyo Robert Hooke laba saynisyahan bay ahaayeen ayagana dood baa ka taagan oo inta badan Robert Hooke wuxuu sheegay in Isaac Newton uu ka xaday fikir la xiriira cufis jiidadka laakiin xilligan uu dhahayo Robert Hooke Newton baa wax ka xaday xilliga muusan noolayn ninka loo yaqaan Isaac Newton taasoo markaas sababtay markii dambe cufis jiidadka marka in asaga loo nisbeeyo ama asaga uu qaato sidoo kale Tom Edison asna wuxuu sheegay in ninkii loo yaqaanay Nikola Tesla oo ahaa aqoonyahan ku takhasusay dhanka korontada inuu markaa asagana afkaar fara badan uu lahaa inuu xaday marka xilliga laga soo bilaabo ilaa iminka culumta in la kala xadaahi waa wax jira waliba waxa ugu badnaadeen kuwa markaa reer galbeedka soo waxaan isweydiinaynaa maadaama culum la kala xadaayo ay jirto maxaa inta badan lagu xalin karaa xalka koowaad oo aadka muhiimka waa waxa weeyaan in la sameeyo sharciga copyright law xaquuqda lahaanshaha sharcigaas waa in la sameeyaa dawladdu marka ama wadanka waa in marka ay leedahay marka qofkii fikir keensada ama afkaar cusub keensada waxa u sahlanaanaya in wixiisa marka loo ilaashado sidoo kale xalka waxaan dhigi karnaa in ardayda marka la baro ardayda jaamacadaha ardayda iskuulaadka ardayda meelaha kale wax ka baranaysa in la baro inay jirto xaquuq lahaansho wax la yiraahdo ama xaquuq fakar wax la yiraahdo marka ardaygaas marka hadii aan la barin waxa imaanaysa arday inuu sidoo ku koro kadibna afkaar fara badan inuu qaato asaguna uu sheegto laakiin ardayga marka la baro isbedel baa meesha imaan karaya sidoo kale in qofku marka ilaashado fikirkiisa waa xalka kale shakhsiga laftirkiisa hadii sharcigii dalka uusan jirin copyright law ama ardayda aan la barin in qofku afkaartiisa inuu asagu ilaashado waa xal kale oo asdii karo aad muhiim u tahay sidoo kale in la sameeyo wacyigelin bulshada in la sameeyo bulshada lagu dhiirigeliyo in ay xaquuq lahaansho wax leeyahay inay jirto ayadana waa xal kale oo aan isleenahay marka wax badan baa marka iska bedelayo marka xalalku aad u badnaanayaan mawduucana si dheereeya ma doonayo hadii halkan soo gaartay wali fikrad aad adiga leedahay ma qof kale ma ka qaato ma ka sheegtay maxaad darentay hadii ay jirto hadii aadan wali fikrad laga qaadanne qof saaxiibka ama ehelkaada ah oo fikrad laga xaday yani mala kulantay bal inta la wadaag insha Allah